waxaan u wada joognay annagoo dhan habeenkii dib u soo laabashada wiilka aan ka go'aynin xusuusta taageerayaasha Manchester United ee Cristiano Ronaldo laakiin waxaaba dhacdayba in xusuustii taageerayaasha Manchester United loogu bedelo in guuldaro ay ka qaabilaan kooxda Juventus goolka qura ee looga badiyayna Manchester United oo joogta Old Trafford waxa uu ahaa mid ka yimid Paulo Dybala daqiiqadii 17aad ee ciyaarta xilli darba uu xanaaq ka muuqda uu laqsiyay goolkii waardiyaha uu ka ahaa goolhaya David De Gea oo De Gea inda ka soo haray Quadrado and then there to tap it in is Paulo Dybala. It's Manchester United 0, Juventus 1. min bilow ilaa iyo dhamaadkii ciyaartana geesigii ku dhaxlumay wuxuu ahaa Paul Pogba oo batabayayba saaxiibadiisii hore ee Juventus wiilka muslimka ahna xaaladiisu waxay yahay habeenkaanna waxayba noqotayba habeen kale oo kooxda Manchester United lagu cajiimay garoonkeeda weyn ee maslaxadda riyada ee Old Trafford